jimco wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aad daawad doontaana waxa ka mid ah hubkii ugu badnaa oo gacanta u galay jamhadaha hubaysan ee u dhashay beelaha Gadabuursi waxaan idiin soo gudbin doonaa xogtii ugu dambeysay hubkan culus iyo halka uu ka yimid iyo cidda soo gelisay Somaliland iyo ciidanka Somaliland oo gobolada galbeedka ka qaaday tallaabooyin culus oo ay doonayaan in looga hortago colaado ka dhaca gobolada galbeedka ee Somaliland oo dharbaaxa kulul ku dhufatay dawladda federaalka Soomaaliya sheegtayna in ay tahay dawlad fashilantay iyadoona caalamku u baaqday inay ka jirtaan taageerada ay siiyaan iyo warbixin ku saabsan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo u qoysgooyay dhinacyada mucaaradka ee ka soo horjeeday kadib doorashadii dadweyne ee shalay ka dhacday gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku daawad doontaan barnaamijkeena intuu hawada ku jiro balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan la gidhe kanaalkana subscribe kana mid noqon saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba u heshid xogaha iyo wararka halkan sida joogtada ugu soo gudbino aynu ku bilownay xaaladda galbeedka Somaliland ayaa ka sii daraysa iyadoona ciidamada beeladyada hubaysan ee u dhashay beelaha Ciise iyo sidoo kale Samaroon ay wadaan abaabulkii ugu dambeeyay xilli cabsi xooggan laga qabo inuu qarxo dagaal weyne lagu hobto oo ka dhaca aagga xuduudda saddex geesoodka ay wadaagaan Somaliland, Djibouti iyo Ethiopia hubkii ugu badnaa ayaa gacanta u galay jamhadaha hubaysan ee u dhashay beelaha Ciise iyo sidoo kale Samaroon kuwaas oo abaabulo dagaal oo waaweyn ka wada deegaano ka tirsan gobolada galbeedka ee Somaliland xilli cabsi xooggan laga qabo in dagaalku uu ku faafo deegaanada ka tirsan dalalka deriska ah xogo waxay sheegayaan in jabhadaha beelaha Samaroon ay heleen hub fara badan oo isugu jira noocyo kala duwan ee hubka waxaana sidoo kale ay soo bandhigeen iyagu muuqaalo ay iska soo dubeen qoryaha culculus iyo sidoo kale ciidamo fara badan oo markaasi ay sheegeen in ay doonayaan inay ku difaacdaan deegaanadooda oo ay sheegeen in ay soo weerareen beelaha Samaroon jabhadaha beelaha Gadabuursi ayaa soo bandhigay hub culus oo markaasi isugu jira noocyada fudfudud iyo sidoo kale kuwa gawaarida lagu rakibo iyo dhalinyaro fara badan oo wata qoryaha fudfudud iyo sidoo kale kuwa culus waxayna markaasi ku doodayaan in lagu soo duulay isla markaana ay doonayaan inay difaacaan deegaankooda haddaba waxa la isweydiinayaa halka uu ka yimid hubkan maadaama goboladaas ay hayeen gobollo nabada isla markaana dadkooda umaysnayn waxaase isu soo taraya su'aalaha ku gadaaman halka hubkaasi laga keenay xilli ay jiraan markaasi tuhumo xooggan oo soo baxayo oo sheegaya in dhinacyo shisheeye ay hubaynayaan ciidamo beeladyada hubaysan ee laga abaabulayo gobolada galbeedka ee Somaliland gaar ahaan beelaha Ciise iyo sidoo kale Gadabuursi oo iyagu midiyaha isku soo hofaysanaya si dagaalo qaraar ay ugu dhexmaraan deegaano ka tirsan gobolada galbeedka ee Somaliland gaar ahaan aagga Seylac kaas oo ay beelahan walaalaha ku murusan yihiin xilli ay soo baxayaan tuhumo xooggan oo laga qabo dalalka Djibouti iyo Ethiopia ee ku aadan hubaynta jamhadahan hubaysan ee markaasi ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolada galbeedka ee Somaliland waxay tani muujinaysaa saameynta culus iyo dhibaatada ka dhalan karta hubkan culus ee gacanta u galay ciidamada beeladyada hubaysan ee ku sugan deegaano ka tirsan galbeedka gobolka Seylac ee Somaliland ayaa isku dayday inay xakamayso hubkan hase yeeshee waxay u muuqataa inuu fashilmay go'aankii dhawaan ka soo baxay xukuumadda hogaamiye madaxweyne Ciro kaasi oo la doonayay in hubka looga qaado shacabka hubaysan si aysan dhibaato uga dhalan isla markaana u sii kordhin colaadda ka tagan gobolada galbeedka ee Somaliland hadda waxay u muuqataa in dawladaha Djibouti iyo Ethiopia ay kaga saameyn badan yihiin gobolka Seylac isla markaana colaadda ka tagan galbeedka gobolka Seylac gaar ahaan magaalada xeebta Seylac ee xudunta istiraatiijiga ay ku loolamayaan Djibouti Ethiopia oo wata damacyo isdiidan oo ay kala yihiin markaasi beelaha Ciise waxa la sheegayaa in dawladaha Djibouti iyo Ethiopia ay baritaarayaan beelaha Ciise isla markaana abaabulkooda qayb ka yihiin hase yeeshee waxa marka la eego dhinaca Soomaaliya iyo Djibouti damacooda ay kala yihiin Seylac waa mid iskhilaafsan waxaana taasi ay dhalin kartaa in dhinacyadu isku dhacaan maadaama aragtida Djibouti ay ku doonayso Seylac iyo midda Ethiopia ay tahay kuwa iska soo horjeeda dhinaca kale deegaano ka tirsan gobolka Seylac waxa ku sugan oo kulamo xooggan ka wada saraakiil militari oo hogaaminaya taliyaha guud ee ciidanka Somaliland Cornel Gaxnuug oo dhawaan u diray madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro kadib dagaalo culus oo ka dhacay aagga deegaanka Habaas iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada galbeedka Somaliland waxa ay xoguhu sheegayaan in wafdiga hogaaminaya taliya Gaxnuug iyo saraakiil kale ay kulamo la qaateen markaasi odayaasha dhaqanka beelaha Samaroon iyo sidoo kale dhinaciisa iyagoona ka dalbaday dadka deegaanka inay ka shaqeeyaan nabadda hase yeeshee ma jiraan wax markaasi ku aadan hubka dhigis ama sidoo kale tallaabooyin ay ka qaadeen ciidamada beeladyadii hubaysnaa ee u dhashay beelaha Ciise iyo sidoo kale Samaroon oo la sheegay in weli isku hor fadhiyaan isla markaana ay wadaan hub aruursi fara badan oo markaasi ay gurmadyo ay ka helayaan deegaano kala duwan oo ka tirsan markaasi deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale dhinaca gobolka Awdal oo beesha Samaroon ay ka helayso ciidamo fara badan
ciidamada Somaliland ee halkaas lagu daabulay ayaa isku dayaya inay ka hortagaan in colaad kale ay ku soo laabato deegaanadaasi xilli la geeyo goob kasta oo labada milisho beeleed ay isaga dhow yihiin si haddii dagaal u dhaco ay u kala dhex galaan maadaama ay dhinacyadan weli hubka haystaan isla markaana ay wadaan abaabul dagaal culus waxaana cabsi laga qabaa in dagaalada toosa markaasi ay dhex maraan mar kale kuwaas oo dhibaatooyin ba'an ku sameyn kara dadka deegaanka ee muddada dheer nabadda ku wada noolaa waxaa dhegeystayaal qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socda balse daawada haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like dhig kanaalkana subscribe dhig kana mid noqon saaxiibada halkan ku xiran si aad mar walba buushid xogaa iyo wararka halkan sida joogtada ugu soo gudbino haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay daawada la jaanqaadka wararka iyo barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino Somaliland ayaa eedayn kulul u jeedisay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona ku tilmaantay inay tahay dawlad fashilantay caalamkana ugu baaqday inay ka jirtaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay tallaabadii Mareykanku dib ugu yeeray safiirkiisa Soomaaliya iyo soo afmeeridda howlgalka siyaasadeed ee qaramada midoobay ka waday gudaha Soomaaliya afayeenka madaxweynaha Somaliland Xuseen Aadan Ciga ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa X horena loo oran jiray Twitter waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay tahay mid fashilantay isla markaana ay ku fashilantay in halato dawladnimo iyo sidoo kale hanaqaad ay isaga filnaadaan in shisheeyuhu ay ilaaliyaan waxa uu sheegay afayeenkan in markaasi qaramada midoobay ay xirayso howlgalkeedii siyaasadeed ee Soomaaliya isla markaana taasi ahayn isbedel farsamo balse ay noqotay mashruuc fashilmay hay'adaha dawladnimo ee Soomaaliya waa kuwa iskoodan isku taagi karin isla markaana doonaya in dibadda markasta laga taakuleeyo waa kuwa markasta doonaya taakule dibadda una baahan garab markaasi ka yimaada dhinacyada Mareykanka iyo sidoo kale dawladda shisheeye ayuu yiri afayeenka xukuumadda hogaamiye madaxweyne Ciro sidoo kale waxa uu sheegay in dib u yeerista danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ay ka dhigan tahay markaasi in ay fashilmay nidaamkii dawladnimo ee laga waday Soomaaliya waxa uu ku dooday in fariinta Mareykanka ay tahay mid cad oo la xiriirta 10 sano oo uu taageeray Mareykanka in Muqdisho ay noqotay mid laga qoostay oo aan laga hirgelin karin dawladnimo markaasi taabagala iyo dimuqraadiyad waxa uu sheegay in Somaliland ay ku noolaanayso hanaan ka duwan xaaladda Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladnimadeedu ay ku timid rabitaan ka yimid shacbiga oo dhistay markaasi laamaha dawliga iyadoona aan helin taageero dibadeed oo aan loo baahan ciidasheeye si loo xasiliyo ammaanka Somaliland waxa uu markaasi ku faanay in Somaliland ay sugtay xuduudaheeda isla markaana ay qabatay doorashooyin badan oo xor iyo xalaal ah waxa uu sheegay in hadda markaasi Somaliland ay sii wadayso dimuqraadiyadeeda iyadoona ka dalbanaysa caalamka inay siiyaan markaasi taageero caalami ah hadalka ninkan ayaa u muuqda mid iska dhicina maadaama dawladda dhexe ee Soomaaliya ay amarro culus ku soo rogtay deegaanada Somaliland kuwaas oo si toos ah uga taabagalay waxaana ka mid ah nidaamka e-visa oo dhawaan wasiirka duulista hawada Somaliland oo si toos ah u qirtay in uu ka dhaqan galay deegaanada Somaliland isla markaana hadda si toos ah uga shaqeeyo waxa uu xusay in xukuumadda Somaliland aysan waxba ka qaban karin maadaama Soomaaliya ay ka faa'iideysatay heshiiskii 2012 ay mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland u siixeen Soomaaliya inay si toos ah gacanta ugu dhigto hawada Somaliland isla markaana ay cid kasta oo ay doonaysan u fasaxdo cid kastana ay u diido ugu dambeyntiina madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqday inuu u goosgooyay dhinacyada mucaaradka ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo ka soo horjeeday doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxa markaasi si nabadgelyo ah ku soo gabagabay doorasho ay shalay oo ay taariikhdu ku beegneed 25 bisha 12 ee December ay u dareereen dadweynaha Muqdisho iyagoona soo doortay markaasi golayaasha deegaanka degmooyinka gobolka Banaadir waxaana doorashadaasi ay ku dhamaatay markaasi si nabada xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu inta gaarigiisa soo qaatay ku codeeyay maadaama ay dhinacyada mucaaradka hore u sheegayeen inuusan jirin amni lagu kalsoonaan karo oo doorasho lagu qaban karo hase yeeshee dadka Muqdisho iyo ammaanka ka jira caasimadda ayaa beenta yiri hadalkii dhinacyada mucaaradka kuwaas hore u sheegay in la isku halay karin amniga waxa markaasi hadda mucaaradku u muuqdaan kuwa gabay hadal isla markaana gudaha Hotel Jazeera ku shirsan xilli markaasi uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoos u dhigay awoodii iyo taageerayaasha ay ku lahaayeen dhinacyada mucaaradku magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya fila Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay kasbato markaasi shacbiyada dadka ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho maadaama ay dadka Muqdisho heleen ammaan markaasi la isku halay karo tan iyo ugu dambeeyay oo xilka joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka ayaa isku dayay tallaabooyin ay doonayeen inay ku carqaladeeyaan markaasi doorashadan la filayay inay ka dhacdo gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho hase yeeshee tallaabadaasi ayaa fashilantay maadaama doorashadii si dhab ah u dhacday aysan jirin wax tallaabo ama fadqalala oo ka dhex dhacday doorashadaasi